السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وايد سلامي. فجر وناكسن، صباح وناكسن، ظهر وناكسن، عصر وناكسن، مغرب وناكسن، عشاء وناكسن. الحمد لله الذي أماتنا ثم أحيانا ثم إليه نشور. وعسب نوسو بري واي وجهري ورمضان ما أنت نوسو بري الحمد لله. أنت دمت إلهي أنا حريستو. أنت حنوسن إلهي عافيو ما شاء الله تبارك الله. أنت مراد لمراد كود الله سهله. قفل بمراد يباهيا dan u hayso maasha Allah tabaaraka Allah. Qof walba dhinaca uu ka baahan yahay ilaahay ka ontiro. Soomaali nabad ay u baahan tahay, nabad allaha noo kaso wadankeena noogu kaso. Baahi badan oon badan iyo waxaan u qabnaa nabadda waxa la dhaho insha Allah. Allahumma aamiin. Maalintii ugu horeysay oo ramadaanka waaye maanta qiso yaraa noo wadaa oo maasha Allah faa'iido leh oo suuratul baqara ku saabsan. Maasha Allah tabaaraka Allah qiso yaraa noo wadaa oo aan soo fasiray oo maasha Allah qisooyinka soo fasir leedahay laga soo dalbaday gabdhaha iga soo dalbadeen walaalaha igu xiran. ما شاء الله تبارك الله. وحير أوانها كهر مرسينا يا قصة أو كصاب سن قبلها. ما شاء الله تبارك الله. أنت يسوي ديني سو أم أحمد. ما شاء الله نفورة هاي أمنينك أنك نفور سنة أمنينك نفور من الزوج أيها هاي نينكيجا أمنينكيجا مروى البواكو حناقة بربليم كيجو بدني هاي مركا عن قيلة بديو أما ربك عن بديو وبعدين أنا حسوست أنا غلطنا هاي قبلها يسوي دينا يا بنات وحيدا ليهاي سورة البقرة على بدي سلي نبي على بديو دتك ده هاي ما آخرين كرنو هل بالآخر مالنتي هالكي صلاة هل بالآخر شنتي صلاة نشم بالهدا آخر سيد ما شاء الله قرآن كرنا ببيشو كده ما ينكرتا لكن هدا ده وحنون سنة حنوك يا أسكفيرنا دي بدن أكاجي إيمانايو ما شاء الله تبارك الله. أنا قد دي بدن أنا هاي أو صومالي هدا أنا واسدبنا و والس أديسا وبدنهاي. ما شاء الله قفك بنا أدك ما شاء الله ما دهيسيد أديو أوك إنا ما شاء الله إيش هذا فهميسيد إنه قفك صح أكفيرنس إنه حسدي هاي مو قوريسيد كلمة ما شاء الله إلهي إنه بارك حديث أما عافمات كيسة أما مركز صح أكفيرسي قبلها كشتكونا أما كدعونا علاج أما شيخ خوسو آخرية إنه إلهي كوا فجيه ما أهني wixii way kugu soo noqonayaan. Isku day inaa naftaada cilaajisid inta suwaanadii oo gabdhaha ugu soo oo ku waaninayo waaye sax waaye qofka culaysa koraay dhibaatooyin iyo carabka laad maayo. laakiin waxa ku leeyahay gabadhiha isku day is cilaaji. ajburi nafsak binafsaki. عالج نفسك بنفسك. ما حاسكو داوينيسا daawadaada gacantay kugu jirtaa quraanka waaye insha Allah. hadaa maali halkii salaad hal baal aqrin karin quraanka ka aqrin karin isku day maalintii 24 saaca ina boga iyo wajigiisa aqrisid yani wajhi waqafa wixii af carabiga dhahaan isku day quraanka ina aqrisid bidaad suuratul baqara hatta hadaa ka seen ku tacta inta suwaanadii suuratul baqara waaye aqduha baraka wa tarkuha hasra la dhahay wala yastati' al batala ina suuratul baqara isticmaashid waxay ku noqonaysaa barako gurigaada barakoobaya ninka ku barakoobaya umada way ku jeclaanayaan. اللهم استعان به نستعين wax badan ay iskaga dareemaysaa wax badan hadda ka horna video la soo hadlay oo aniga qiso run igu dhacday haddana waa idin sheegaya qof ah xanuunadan ruuxiga ee ku imaanin malahan xaykoon min sixir xaykoon min waxyaabo kale xaykoon min ceen xaykoon min waxyaabo kale laakiin aad waxa laga rabaa inaad iscilaajisid. gabadha ka hadlaysa hadda qisadan oo dhahayso nin is guursanay waa dhaqmaayay dhahday ninkii markaan is guursanay markii la gaaro 7 bilood mashaakil ay ugu bilowday oo dib ninkii mar rabo sheekh qisada waa qiso carabi waxay leedahay ninkii mar rabo ilaa mashaakil ay isla gaarnay oo ninkii iska kay furay. waxay dhahday quraanka iska akhrisan jiray suuratul baqara ku soo celcelin jiray marmar waa iska joojin jiray. gabadha ka hadlaysa qisada ay soo fasiray bacdeen waxay dhahday Allahumma musta'an waxa sameeyay maxal dhahaa maalin maalmaha ka mid nina ay soo doontay ninkii markuu hay'adaho uu iska baxaya haddana nin kale ay soo doontay qilaal 2 sano dhaxdeed waxa ku jiray nin la isoo doonanay nin la iga tagay nin la isoo doonanay nin la iga tagay 2 sano dhaxdeed marka saas ah oo ani isla yaabanahay qofku inuu isweydiiyaa muxuu ninku ku diidayaa qofku inuu isweydiiyaa guurka muxuu kaaga culus yahay yani cilaaj ina raadsada laga rabaa. waxay dhahdaa waxa isku day ina daawo raadsado. daawadii waxaan ka raadsaday kitaabka ilaahay waxay leedahay waxaan soo qabsaday suuratul baqara aqrinaayay
كل الصلاة أخرناي كل الصلاة أخرناي كل الصلاة أخرناي وكل عليناي أنت صلاة السنة إيه قرآنك وأخرناي لكن وأنجو جونجري لا ما شاء الله تبارك الله صلاة على رسول الله يعني كوركي لبسنا أن كوركي فديو يعني كوركي وأقع الصلاة إنكي هرنا إلما موصو دالين دبكاس نوسكي هيستي لا ما شاء الله تبارك الله صلاة على رسول الله يعني سورة البقرة waxay leedahay wax dheel ee ma ahan faa'iidadeedii iyo khayrkeedii ilaahay wuu ii soo dhaliyay leedahay gabadhaas maasha Allah tabaaraka Allah qisada ka soo fasiraa waxay leedahay waxaan ku xirnaaday qur'aankii aan ku xirnaaday yani waa adkeeyay salaad walba aan ka dhigay inaan ku celceliyo suuratul baqara aan ku celceliyo aan faadi u soo noqday yani waxa dareemi kartaa gabadha qisada ka sheekeynayso qof guri fadhisa inay tahay oo ilmo ku xiriirin oo nafteeda oo soo heshay waqti inay ku bixiso yani waqti inaa ku bixisid naftaada maasha Allah tabaaraka Allah waxay leedahay waa ku celceliyaa maalinkii dambe waan seexday anoo meeshii aan quraankii ku aqrinay ayaan ku hurday leedahay markaan hurday waxaan ku riyoonahay leedahay riyo cajiib oo riyadaas suulka oo lugta aan waxaan leeyahay tina iga soo jeeda arkaya ay leedahay tin aan lugteyda yani cidida hilibkeeda iyo meesha u dhaxayso oo suulka oo qaybta lugta meesha dhaxdeeda waxa ka soo jeeda tin ay iga soo jeeday leedahay tintiyan saan u soo qabanaa meeshan quraanku ku akhriyay saliga korkiisa ku jiifay dhahad markaan tintii soo jiido waxa soo baxay leedahay waxa la dhaho cagrab ama waxa la dhaho dabaqaroof oo midooba soo baxay leedahay waa soo jiida markaa soo jiida bahla soo raacayo wax oo bulac dab la dhaho wax abeesulwaale camal u eg laakiin oo yar soo raacay leedahay cagrabkii tintii waxa ku dhagan dabaqaroofkii waxa ku sii dhiganay leedahay bahalkaas ku dhagan markaas intaan yad qaato shay intaan qaata ku garaacaya waa dilaya wixii uu baqaya sidii xasharo oo kaleeto yani sida baranbarada markay kabta lagu garaaco ama lagu baqbaqaya markaasoo meesha ku kala go'aya ay leedahay markuu ku kala go'o haddana wuu isku soo aruuraya yani si dhiig kala dhaqaaqay oo haddana isku imaaday camal oo noqonaya ay leedahay bacdeen waxay leedahay markuu isku soo aruuro wixii waa waynaya meeshii yani waa ka baaba'ayaan indhihiya kala furay leedahay markaas waxaan is arkay inaan jiifo meeshii aan quraanka ku aqrinay maasha Allah tabaaraka Allah bacdigeedii markii 2 isbuuc la joogay nina isoo doontay alxamdulillah shukr bil caalamiin mar doorkii hore marna nimanka iga cararayeen marna aniga nimanka diiday dhibkaas ay haystay maasha Allah tabaaraka Allah ilaahay ninkii wuxuu nooga iga dhigay dhahday nin barakaysan waa isku waafaqnay guurkii waa la guursaday waa uuray ilmo ayaan leeyahay maanta reer aan leeyahay marka waxay leedahay gabdhayahow hal isku daaweeyo suuratul baqara ma ahan inaad sheekh tahliil u geysatid oo qof kale canduufu ku tuftafay adiga cabtid adiga isku daawey maxaa kaleeto yaabanaad aan idinku darsanayaa waana mar walba waa idinku waaniyaa faataxada ka dayma la'aanina gabdhaha ila soo hadlaayo oo su'aalaha isoo weydiinayo hadda qisadan idinka idin soo qaaday waan raadiyay bariyaan horta ramadaan lagu mashquulsanay qisooyin oo maasha Allah faa'iido ka helaysiin waanooyin oo faa'iido ka helaysiin video in la iska fiirsado ma fiicno يعني ما شاء الله تبارك الله قصة صبر كنا بريسو قصة مركز أنا فائدة نوجا صور بحيس قصة مركز إسلام هذا دبا كويستو دبك واعج بحكرتا إنا فيرستت وكسر العشتت وحبضنا كهليسا ما شاء الله تبارك الله مركز شيء سميني سيدنا هؤلاء سمينين مراد عليها بالرواز كدافعة ما يهداكو أتكاتت سورة البقرة ولا هذا أقدها وحالها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة qaadashadeedu waa barako ka tagowgeedana waa qasaaro dadka batala waxaa la dhahaa sixiroolayaalka dadka xasidka iyo dadka isha kugu dhahayo oo furuuriyaha kuu qaniinayo dadkaasaa la dhahaa batalada oo adiga nolol dhan kuu quurin dadaa rabaan bini aadanka haddii ilaahay nafta gacantiisa ay ku jiri lahiin dadka dhexdiisa waxaa ku jiro dad neefta kuu diidan inaad noolaato waa Soomaaliya nahay aad u dhib badanahay waa is ognahay markii banaad ma sha Allah tabaaraka Allah maanta Ramadaankii maalintii noogu horeysay qisooyin insha Allah faa'iido wax ka faa'iidi doono iyo waanooyin ina iswaanino ma sha Allah tabaaraka Allah adduunyada isku waanino si ilaahay aakhiro noogu fududeeyo oo fardoos al-a'la ku kulanno maanta qisadaas aan keenay oo ku saabsan gabadha baqara akhrineysay oo guurka ka cuslaaday oo ninkii iyada ka tagtay
gabdhaha su-aalooyinka isoo weydiinaya maasha allah tabaaraka allah oo beyna qowseynka ee su-aalahaas oo la dhahayo nufuura ay haysta haddaba gabrihii isku dadaal ninka islaameed gurigiisa adaa og waxaa kasoo doontay gabdhahaas hal maahan laba maahan saddex maahan afar maahan shan maahan waxay soo weydiinaya su-aashaas waa idiin sheega in cudurkaas waa qabi jiray waa isku dadaalay waa is arkay inaan qaldanahay dhinacaas iskala dadaal waxyaabaha qaaska idinku sheegana waa fahanteena oo malaynaya maasha allah tabaaraka allah maanta qisada meeshaas aga baxaya oo ahayd qiso yar oo qurux badan oo faa'iido leh adiga faa'iido ku ani faa'iido ii leh qofkii muslimka oo markaas la shaarigtidna faa'iido leh maasha allah tabaaraka allah hal baal haddaa maalintii akhrisad qur-aanka cilaajka ugu weynaa gacanta kuu soo galay baqara haddaa hal baal aa akhrisid gurigaada wuu ka baxay maasha allah tabaaraka allah waxyaabaha markaas oo raaciska leh ama isku dabaqabadka leh ama ku dabakabidda lehna waa inaad samaysataa maasha allah tabaaraka allah isku dadaal gabaryahay maanta qisada meeshaas aga baxaya ramadaan kariim kullu caam wa antum bikhayr maasha allah tabaaraka allah sanadkan sanadkiisa sami sucaadi ilaahay nagu gaarsiiyay idin leedahay axmed salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu